dadkeen loo israacay daawada ilaah darajay daawada qalbigu dawoobay daawada dantoodu qashiyay daawada dadkeen loo israacay daawada qalbigu dawoobay daawada ilaah darajay daawada dantoodu qashiyay daawada jeelku isu reer dhicis buule reer wajeer magacaas maxaa u maleynaa brandiness ka noqdi slogan-kay from 2017 to 2022 inshallah maxaa say baray baarlamaan antaan baarlamaanka galana slogan asaas u taagan u maleynaa dadka ciilkayga tirayn maxay ka bilaaban reer ceeldaas maxay u gudbayeen reer wajeer dhammaan inshallah tariibkan maxaan aaminsan yahay riidasay ay ii sheegtay inshallah inta lagu guuleysana inshallah ta'ala. Today is a great day for me, for meeting the people, the professional people of Eldas and the Wajir counties, the other sister sub-counties, the other 5 sub-counties of Wajir County. Welcome. I'm here to serve not only Eldas, but the people of Wajir County as whole, regardless of what tribe you are, regardless of what affiliation, political affiliation you have, regardless of what clan you are, but I am here to serve the people as their servant leader. Come 2022, inshallah. Mid kalan ilay hay walaalyaal horta maxaa reer ceeldaas ahaan ka bilaabaa reer ceeldaas tariibkan inshallah maxaa la maamul xumo maxaa la abaar ka daran 2017 hoosaan markaan u hadlay reer ceeldaas xoogoo dhinaca women rep waa ka gaabini maamul xumo jirti anata waa ku jiri maamul xumadu waa ku jiri raaligaas ahaanaysiin maxaan ka baryaa intaan garab u noqonin mar kale maamul xumada marka 2017 dhacday dhinaca women rep representative oo Wajir County gabdhii ka tagnay Jibril subaynaan xiraa raaliga ahaada tariibkan ani maxaa inshallah anoo baray dhicis magacay ku hadlahaaya gabdhahan kale walaalahay maxaan ka codsanaa intaan olive branch aan u dhiibo oo isu imaadna oo danteena ka tashana oo reecelaas maxaa u danaan dhahna marka annaka isku afgarana sidaas le aan ugu guuleysana inshallah meeshaan ay siyaasadda marka la gaaro meeshaan isbahaysi weyn hadda ka jira ani xisbigay waa UDP. My party leader is Cyrus Chirongo and deputy party leader mashallah waa nin reer Wajeer waa Abikar Senator Abikar hiliho waa garab taagan yahay my party leader Sasokolo. Today he could be here, but because he had other function, my party leader, His Excellency Cyrus Chilongo, could not make to come today, but he is part and parcel of us, and is a friend of Eldas, and is a friend of Wajir County as a whole, and is ready to support, the people of Wajir this time, because he sees it, and he dreamt it, and what he said, he told me, Mheshimiwa Baredi is naona kuna nuru gizani, that this time round, Women Rep 2022 will be none other than Mheshimiwa Baredi Bule. Inshallah ta'ala, my manifesto, inshallah, duwan waa soo bixin doona, waxaan qaban doona hadda ilaahay ugu sima hadda gambar kursi kuma sii jirin saana qabta ma dhahay laakiin inshallah maxaan aamin ku yahay on is aaminsan yahay aniga antaan reer Wajeer wax uu qaban doono on reer Wajeer dhammaan the 6 sub-counties oo reer Wajeer maxaan ka codsanaa intay is aaminaan anigani aaminaan tariibkan balanteena waa baray iyo baarlamaan inshallah ta'ala. President maxaan dhisaynaa xisbiga baxdeena maxaa xisbiga Azimio Jubilee ahata wayba ahata Azimio waa baxdo waa dadka isku bax waa isku hooyo markaan garab aan isu noqono
midaan women reebto garabaan iskugu noqono MCAs MPs maxaan ku codsanaa MPyaasha kuloo dhammaan reer Wajeer kuwa u taagan MCAs the whole county maxaan ku codsanaa as a mother naomba kura zenu munipatie inshallah come 2022 madaxweynaheena maxaad noqon doonaa oon dhisi doono isku raacsanahay and I know he will be the 5th president of the Republic of Kenya, Mr. Prime Minister Raila Amolo Odinga. About the lineup, don't worry, taasa laga fikirin lineup-ka meel kasta markay bax kasta meesha kursiga la isku imaado reer Ceelas kama maqnaanaysa anigoo afka reer Ceelas ku hadlaa maxaa u maraynaa baray dhicis meel ay reer Ceelas dan u heen anta anigana ay dantay ahayn midda dawladda la soo dhisa county-ga waxa noogu jiro waa women rep position inta governor oo taagan broad daylight. I'm telling them now in a broad daylight that the person who does not have the interest of elders for the position of women rep, even us, we don't have the interest for that governor at all. We will not compromise because siyasada hadaas ba ka maqnaata wasiir lagu siinaa wixii gadaal ka soo noqona alwacalad maybe line up kan ku jira inta soo galina dhici karta soo hadantan waa intii lagu qaybsado miiska lagu qaybsado siyasada waa muhiim siyaasad mbaya maisha mbaya 2017 ay naga halaawday hadda ay naga halaabin garwaan isu noqonaynaa gabdhaha waa isu imaadayna cidahana u tashanaynaa saddexda gabdhood oo taagan oo Jibraa'ilka tii u qalanta kulligood u qalmaan laakiin tii mo support haysata tii u qalanta waa intaan aan kuraha aan si fiican u soo dhisna oo saa annakana gabadhana ay ku guuleysata gabdhahayn maxaan u codsanaa hadantan aan ismaqalna aan isu naxariisana aan isu talanzulna ana diyaaraan u yahay Ceelas tripkan 2022 maxaa women rep antay meesha Ceelas ay ka maqnaataan anima doonahay hadaa la talansuula waa talansuulayna danta Ceelas waa danteena danta reer Wajeer waa danteena walaalayaal aad u mahadsantiin saa meeshaanaytu u soo camirteen sida support isiiseen dhalinyarada 2017 waa support gareyseen shilin la'aan ay support gareyseen haddana maxaan ka codsanaa sidii isi ka daran aad aan kugu mahadinaa walaalayaal waa mahadsantihiin insha Allah come 2022 balanteena waa barey iyo baarlamaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته